hirgelinta dhismaha xarunta caafimaad ee deegaanka Haqaya Malaas ee gobolka Togdheer oo ah xarun ay baahi weyn u qabeen hirgelinta xaruntaasi caafimaad deegaanka Haqaya Malaas oo ah deegaan ballaaran oo hoos yimaadaan deegaano kale oo tiro badan ayaa markii ugu horeysay waxa halkaasi laga hirgeliyay xarun caafimaad oo hirgeliyeen qurba jooga ganacsatada iyo guud ahaanba dadka kala duwan ee ka soo jeeda deegaanka Haqaya Malaas xaruntaasi oo ah mid ku qalabaysan qalab caafimaad oo dhameystiran iyo waliba shaqaale leh xirfad caafimaad oo dhameystiran munaasabad ballaaran oo loo qabtay xarika jarista xarunta caafimaad ee Haqaya Malaas ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco xildhibaan Xuseen Aadan Cabdi oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxgarad cuqaal ganacsato haween iyo guud ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeynba waxa sharaxaad ka bixiyay xarika jarista xaruntani caafimaad gudoomiyaha deegaanka Haqaya Malaas Axmed Xaaji Xirsi gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Dr. Ciise Nuur Liibaan iyo gudoomiye Axmed Diiriye Liibaan waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan waxaan leeyahay bada saabka gobolka intuu yimi tuuladayadan si weyn buu wax noola qabtay bada saabkii ugu horeeyay nagu soo booqda Haqaya Malaas noogu yimaada waxa waxyaabo badan oo ama hay'ada ama dhaamkana aynaantay qodisiisa ayuu nala qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wax qabadkiisa Cabdiqani qodiisu qayb uu ka qaatay cagafyu noo soo diray una wax badan oo aan u baahnayn ayuu nala qabtay aad iyo aad baan labada ninna aan ugu mahadnaqaynaa daabiyada magaaladan Haqaya Malaas leh waxyaabo badan ayaanu ka codsanaynaa in xukuumaddu ay noo qabato oo naga dhiman waxa ka mid ah MCH-kan waa aragtaan intaas way bannaan tahay inta horta in la nala qabto isuduwaha iyo cidii kale ee wax nala qabanaysa in noo qabato ayaanu doonaynaa waxaan u baahanahay station aad baan idinku soo dhaweynaynaa tuuladan oo maanta loo daahfurayo oo xafladeedii loo fadhiyo in la furo xaruntii caafimaadka ee ay lahaan lahayd aagani isuduwe waxaan ku sheegaynaa halka maanta marka laga bilaabo MCH waxa ugu dhow goodii weyna xagaana waxa ugu dhow saaxir ka tirsan halkaana waxa ugu dhow Burco halkaana waxa ugu dhow Sheekh xagaana waxa ugu dhow Oodweyne baaxadda inta leeg ayay insha Allah ay wax ka qaban doontaa dadka xanuunada kala jaajaadka ee halkan wax lagaga qaban karo ay loogu tala galay dadka deegaanka dibadiyo gudoba way isku tashadeen waxaanay go'aansadeen maadaama awoodihii dawladda iyo shacabku aanu aad u kala fogeyn in wixii dawladdu ku darsanaysona ay ka helaan wixii deegaanku ay qabsan karayeen ay qabsadaan alxamdulillah lacag aad u fara badan baa ku baxday gudaha degaba ay deegaanku soo urursadeen oo ay halka geliyeen waxaan filayaa dawladda dhexe iyo degmadu labaduba inay ka qayb qaadan doonaan oo wixii ay u heli karayaan ay ku taabici doonaan runtii bini'aadmiga ayaa bedela dunida waxaan garanayaa maalintii Axmed Xaaji Xirsi halkan noo soo saaray ee iyadoo bannaan uu lahaa halkan idinka siiya ma halkan halkeeba ay ku wanaagsan xanaano maanta alxamdulillah iyadoo dhisantay ayaynu furaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii fikradeeda lahaa ee gundhigii ugu horeeyay u soo ururiyay oo qurba jooga reerka qurba jooga beesha ayaan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay maanta ku soo dhawaada in xaruntii u dhisteen tolkiin xaruntii ay initiative-geeda lahaydeen ogahayd nooc kasta habliyeynamaba iyo odayaalba bilaabay waa u mahad celinaa ilaahay baa mahadda koobaad lee muddaanta iyana leeyihin intii kale ka qayb qaadatee deegaanka iyo dadka beesha ee jooga halkanna iyo maxaan dhahay magaalooyinka joogana iyana waa mudan yihiin sidaa loo sheegayna imika la dhis laakiin wanaageedu wuxuu ku jiraa
jiritaankeeda oo idinka idinku xidhan jiritaanka oo dadweynahan ku xidhan ayay ku jirtaa wax badan odhan mayno waxa weeyaan dadaalkaa la muujiyey runtii markuu iminka ciise sheegayey masaafada u dhaxaysa ay badha u tahay waa masaafo aad u kala fog aad bay u kala fog tahay waxa weeyaan misaaxil ilaa burco ilaa oodweyne ayay badha u tahay dee markaa si loo eego mchadooda marka runtii waa masaafo aad iyo aad u kala fog waxaan jeclaan lahaa uun middaa la dardaaray ah in meeshaa la qurxiye la wanaajiyey quruxda waxay sii jiraysaa uun haddii dadka deegaankii ay ilaaliyaan midna waan jeclaan lahaa oo ku dari lahaa cid ay khusaysaba maadaama dhulku kala fog yahay war ambalaas xataa qaar baa la sameeyaa malaa in ambalaasna loo sameeyo xataa noohooyinka laftooda waa la samayn karaa marka in ambalaas loo sameeyo si dee deegaanka ballaaran isku gurmadkeeda iyo hawsheeda muxuu ahaa markaa loo gudbo horta waxa la yaab leh oo iminka mucjiso igu noqotay wadadan markii la mari jiray burciya hargeysa la qaban jiray waa dee ilaa waqtigii ingiriiska halkan meel galgalmaa la yidhahda loodhan jiray diyaaradaha ingiriisku fadhiisiyey dagaalkii koowaad adduunka xaqaya malaas lay ahayd magaalada intaa ilaa waqtigaa jirtay baan mch lahayn oo saldhig lahayn dhul iminka 5 sannadood jirayna ay leeyihiin waan la yaabay iminka markii arrinka la sheegay horta waa mucjiso wax walbana qadarka ilaahay baa leh maanta waa la dhisay isuduwaal ala ballami maayo waa geediisa isaga ninkana geediisa lagalama ballamo mar hadduu yahay isuduwa caafimaadka gobolka mch iyo caafimaadkiina yahay isaga lagala ballami maayo waa geediisa ninna geediisa lagalama ballamo wuxuu heli karo wuxuu haaban karo wuu doonanaya qolada magaalada kelmad baan odhanayaa oo shaqaale idin imanaya laga yaabaa in dee magaalada laga soo raafo halkan lagu soo qoro mar haddii arday halkan ka baxday aani jirinoo soo qaadatay neersanoo halkan joogta ardayda dadka waxaa la doonaya shaqaale caafimaadka idinla jooga inaad soo dhoweysaan inaad caawisaan inaad dar yeeshaan si uu qofka ugu sii dhiirado u sii joogo aad baan ugu faraxsanahay ma laha xildhibaan keliya waxa weeye tuulada ugu xildhibaanada badan leh marka golaha loo eego runtiina mudan in si gaara loo sii eego oo laga warhayo waanu idiin maqannahay waanu idiin doodaynaa waa idin berber taagannahay sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inay communitigiisa abaabuleen in maanta shalay dhagaxdhigi waan joogay meeshaas oo bannaan maanta inaynu hadhsanayno oo iyadii aynu hor fadhinno oo aynu ku wada hadlayno farxad bay tahay farxaddaasna waxay ka timi waa bulshadaysa abaabushay anigu kelmad yaroo dardaaran un baan deegaanka siinayaa tacab baa halkan la geliyey deegaanow maadaama tacab la geliyey halkan tacabkaasi waa tacab idinka idiin dana waa tacab ummadda u dana waa tacab intaa la soo sheegay ee gobol u dhaxeeya oo la doonayo inuu caafimaadka wada gaadhsiiyo runtii hawsha maanta ka socota halkan waa hawl horumarina oo aanay haysan magaalooyin badani marka dab u baxo dab kale lagu qabsadaa communitiga ama jaaliyadda sida fiican wax u qabsatay gudayo dabad oo dhisatay haykalkii aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana u ducaynaynaa qaybta labaadna waxa weeye sidii ay u noqon lahayd adeeg bixiye joogto ah oo intan aan iminka nahaynaa waa in wanaagsan runtii waxay lagu qaban karaa adeegyo badan oo mataqaanaa gargaar degdega ah oo hakisa in xitaa aanay dhakhtar bannaankaa loo baahan ama barco la geyn xildhibaan xuseen aadan cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay dadka deegaankaasi inay si wada jira u ilaashadaan xaruntaasi caafimaad lana shaqeeyaan shaqaalaha caafimaad ee ka hawlgeli doona xaruntaasi runtii aniga farxad bay ii tahay maanta deegaankii aan kana soo jeeday laygana doortay inaynu maanta furayno rug caafimaad oo hadda cusub oo maanta aynu dah furayno insha Allah in meeshan magaaladan aynu joogno hadda haqayo runtii haqayo
sida arkaysaan ama deegaankan aynu joogno halkan kala dhac baynu soo dhaafnay haqayaa ku xigta halkan waxaa ku xigta meel la yidhaahdo cilaan ama jinac tuulo jinac halkan girni baa ku xigta tuulo gumbuur baa ku xigta xaggan waxaa ka xiga cilaan xaggan waxaa ka xiga 4-5 magaalo yaryar oo aan magacyadii aad saxaynin deegaanka intaa leeg waxay la qabaan sidii ay haqayahayd may lahayn xarun caafimaad may lahayn rug caafimaad hooyada buuraha gunteeda ama halkaa ku foolataa marka hore waxa dhib ahayd si loo soo qaadi lahaa ee loo soo gaarsiin lahaa wadadan baabuurtu maraysa transportationku uu xiriirsan yahay oo meelo waxay leedahay buuraha ku dhow waxa dhib labaad intii la gaarsiin lahaa xarun caafimaad maanta alxamdulillaah haddaynu halkan keennay oo maanta tan inoo bilaabanto inoo dhammaatay aad iyo aad baynu ugu faraxsannahay alxamdulillaah waxaana filayaa sidii xildhibaanadu inoo sheegeen intan waa la kafaalo qaado iyaduna way raacaysaa saasay ku raacaysaa insha allah labada meelood wax ka dhiman yihiin gudoomiyuhu sheegay dhaamka wuxuu yidhi dhaam baa halkan la qodo waa qabiyo maanta qorshaygu waxaa inaanu cagaftii weyneed tii hore qoday ka weyneed aanu keenno oo ina soo raacdo maantaba ay ku jirto iyaduna hawlaha maanta aanu ka gayoon weynay waa inoo diyaar cagaftii way soo baxaysaa dhaamka insha allah waynu dhammaystiraynaa qabyada labaad iyaduna taalla ee ka muuqata waxa weeye rugtii haddaynu samaynay oo inoo diyaar tahay waa lagama maarmaan inaynu helo ambalaaskii isaguna u adeegi lahaa ambalaaskaana haddii lahay ka dhiga insha allah inta kale marka laga imaado 3 xildhibaan baanu halka ku joognaa oo ugu doorateene aniga iyo maxamed iyo cabdiqani meel kastaanu ka keenay ambalaaska oo keenay haddii lahay ka dhiga insha allah isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Cabdi Axmed ayaa u mahadnaqay dadka deegaankaasi hirgeliyay xaruntaasi caafimaad maanta waxaan u joognaa inaan furno xarunta caafimaad ee Haqaya Malaas waxay noogu biiraysaa xarumo fara badan oo gacanta ku hayno mas'uuliyaddu wayna saaran tahay hakranna mayno insha Allah horena noguma jirin inaan hakranno imkana hakran mayno waxa dardaarana siisan waa qaadanaynaa wixii awoodayadaana waa fulinaynaa waxaan awoodayada hayna waa kula soo noqonaynaa ee taa maskaxda galiya horta Haqaya Malaas iyo xildhibaanadeeda hal baan leeyahay iyo qurbo joogteeda xuqaasheeda iyo wax garadkeeda ba mid baan leeyahay iyadana waa nala samayseen waa nala dhisteen shaqaale baa nala keenteen dawladda baa nala keenteen hanagaga hadhina intaanu culayskeeda wada qaadayno hanagaga hadhina waa iska ogtiino dee wadanku dhaqaalihiisu dee ma wada qaadi karo waxaa soo degma waxaa soo xaruma meel wacan baa soo joogsanoo inaad dhisteen inaad shaqaale nala qaadeen xildhibaanka waanu ka wada hadalay hawsha xildhibaan dardaarankan maalintii ku siiyey halkii bay noo joogtaa wada shaqaynta iyo inaan ka wada shaqeynaa hawsha anagu wixii agaba iyo dawooyina waan ballan qaadaya bil walba wixii cirkana ka keen dhul walba inay mar kasto ay ka soo gooday soo qayla dhamaan inaan soo raro intaan se shaqaalaha wax u helayno waad nala wadaysaa adiga iyo gudoomiyaha iyo ciddii kale guddida waa nala wadaysaa deegaankana waxaan leenahay sidaa 100 adhiga u ururiseen war sanad walba ururiyo dhiga iyada idinka ku filaanayabe hadda sanad walba u ururisaan waxaan dareemayaa in xitaa dadkan ka hareerina caawin kartaan waana 10 leed ka baranayo maalin walba aan soo qaadana xolanahay Haqaya Malaas intaas ay ururisay deedba iska ururiya ومحمد إبراهيم بريتش تيفيق قرنك الصوماليلان برعو